الرحمن الرحيم maanta 28 bisha ay tahay waxaan iyo Ustaad Cabdalla Muumin oo labadeenaba maartay urar shaqaale oo saxafadeed madax ka ah waxaan maalmahan isdaba joog aan u qabanaynay press conference ama doodo aan maartay aan u jeedinayna dawladda iyo wixii la halmaalo maartay gardarrada maartay saxafiyiinta ku haya waxa waaye markii ugu dambeysay waxaa jirtay in afhayeenka aan jecelnahay noogu yeero maalin walba maartay waxyaabaha dhaca asaga inuu nasiiyo war inuu nasiiyo rabo haddana aan diyaar u nahay oo aan u tagno oo haddana dhaqankii afhayeennimada iyo maartay inuu noogu dhowaado afhayeennimada ay ahayd aan maalmo dhow laga waayey waxaa jira Anas Maxamed nin la dhaho oo wariyaashka ka mid ah yaa warbixin sida ay ahayd u sameeyey wuxuu ku amray shir jaraa'id isagoo ku qabanaya meeshii deegaankii laba gabdhood iyo abahood laga qabanayay uu ugu yeeray oo wariyaash intuu ka dhaxbaxsaday hal la xiray yiri oo waliba meesha lagu xirayna ay noqotay meel maartay wax maalmahan la leeyahay ciyaal weer way la leeyahay lagu dhax tuuray arintaas horta wax muxuu ahaa aad noo dhibaayo waaye wariyaashu dhan ay dhibaysaa warbaahinta Soomaalida ay dhibaysaa maalin walba adduunyada marka laga maqlo warbaahinta Soomaalida waliba cabanayso la yiraahdo waxa waaye wax aad maartay dhib noogu ah arinta odayga iyo gabdhiisa sida uu sheegeen oo looga duubay inay way laba goor ma kala hadleen bani'aadamka waxa waaye haddii ciidannimo loogu faano amaba loogu handado waxay sameynayaan waa cabsanayaan odayga gabdhiisa haddii la handaday sidaa rabnay muxuu ahaa idin sheegnay dhaha wax suurtagal ah maaha annaga waxaan ka sugaynay media inuu investigation sameeyo wixii markuu helo arintaas markay helaan booliiska arintaas ay si u qaataan ay ku howlgalaan iyaga laga rabay oo baaraan oo maartay haddii gabdhii la afduubay haddii kaleba inay soo ogaadaan laakiin sheekada waxaan weli fahmi laanahay oo dadweynaha xataa fahmi laayihiin dadweynaha ku inay sheekada inay u fahmaan aad loo rabay waayo oo qaladka jira ay ogaadaan qaladkaasna booliiska soo saari lahaa marka in booliiska ay noqoto arrin maartay muxuu ahaa madmadow ku jiro ama wax qaris xaqooda ka muuqato marka afhayeenka oo aan waliba maartay dad dhownahay ahaa in muxuu saas uu amaradaas bixiyo maartay Anas Maxamed waxa waaye gardaraa lagu sameeyay iyo wariyaasha kale gardaraa lagu sameeyay haddana kuwa subax loo yeeranayay iyaga ay ahaayeen oo la leeyahay shir jaraa'id la qabanaa ha laga duubo aniga taas waa ka suweynay anaga Ustaad Cabdalla in muxuu ahaa waxa wariyaasha maartay loogu yeerayo sidaan rabna noo dhahmiya ida laftigeeda marka arintaas waa waliba ka doodaan ka qabnaa booliiska saxo kuwii dadka aad u dilaya maartay laga cabanayay hadda booliiska caadiga afhayeenkooda inuu maartay meesha soo galo wax laga xumaado waay marka arintaas dib ay isugu noqdaan ha saxaan odayga iyo maartay gabdhiisana waxay sheegeen yaa runa dadka saasan u sheegayna anaga hadda waa maasantiin